rahmatullahi wa barakatuh. I say another beautiful day. Alhamdulillah. Still we're breathing. Alhamdulillah. Waan noolnahay, waan soconaa. Dhammaan waxaan ka salaamayaa walaalaha halkan iga daawan doona. So inshallah I will waxaan ahaa busy baan ahaa brihan, and so channelkayga wuu seexday. So I'll be back here. So waxaan aad iyo aad idinka raali gelinayaa inaan maaragtay aan ka yara maqnaa. So inshallah waxaa idin tusi doonaa horumarka wadamada shisheeyuhu ay gaareen. As you can see, wadamada shisheeyaha horumarka ay gaareen waxaa ka mid ah wadooyinkooda, waxaa ka mid ah muxuu haayay dhulka say u dhisteen, waxaa ka mid ah muxuu haayay say iskugu tiirsan yihiin. dadkayga Soomaaliyeed idin mee intaa yar waa iska maaragtay joog, walaahi joogna maaha, laakiin markaad aragto ma aha walaahi kaftan ma aha, walaahi it's very serious. markaad aragto maaragtay wadamo saas horumar u gaaray iyo markaad wadankaaga aragto, walaahi waxaad noqonaysaa waad xishoonaysaa, absolutely waad xishoonaysaa. waxaad dhahaysaa maxayna dheeriyiin, waxba nama dheero, maxay naga muxuu haayay nagaga fiican yihiin, waxba nagama fiicno, maxay muxuu haayay maskaxdaan haysano. The Somali people, wallahi Somali people waxa weeye dadka oo ugu maskaxda badan oo adduunka ugu creative ah oo maaragtay waxay abuurayaan maasha Allah. laakiin maxaa dhacay? something baa ka dambeeyo. waxa ka dambeeyo waxa weeye maanta ilaa waan booliiska igu shidanin faataxada igu soo maray kowde. So waxa weeye dadka Soomaalida wallahi dadka ugu maskaxda badan weeye oo ugu caqliga badan oo ugu fariisan oo yacni aan maaragtay wadamada shisheeyaha markay yimaadaan most of them wax maaragtay dadka kale ku qaatan sanado iyo bilooyin iyo waxbay markaaba bartaan oo markaaba kala tuuraan. maxaa inagu dhacay marka guys? anagoo dhulkeeni inaan wax ka samaysano, inaan maaragtay meeshaan fiiri inaan dhulkeeni wax ka samaysano, at least inaan qashinka horta ka bilowno. qashinka aan dad ku tuurayno inaan iska dayno, inaan muxuu ahaayay aan iska dayno, inaan dhulkan ka dhigno dhul annaga aan leenahay. hadda look at that, ilaan kugu dhaariye maxay ahaydey waa run. imika dadku waxay dhihi doonaan dhulkan horu maray, wadamada horu maray oo lacagta ka dhargay. ma aha lacag. waxaan idin tusi doonaa insha Allah biidnillah meesha ay ka soo bilaabeen iyo farasyada ay ku fuuli jireen, faraska ay ku fuuli jireen markay travel noqoto meeshay aadayaan, iyo waxay qaadan jirtay sanado. meeshaan hadda halkan iyo matalan Canada iska dheh waxaa u soconayaa 19 hours. meesha Canada oo igu fog camal oo aan aniga hadda experience u leeyahay oo aan tagay waxa weeye Canada Edmonton camal iska dheh 19 hours. 19 hours ilaa ku dhaariyo waxa loo socon jiray 3 sano sanad ayaan dhihinaa adiga almost 6 months to 3-4 months. haddana adiga waa u jeedaa maxaa la raaci jiray faras inta maaragtay dabada baca iyo qoryo lagaga xidho ayaa la raaci jiray, sacyaashaa la raaci jiray. faraska mar danbaa la bartay. waxaan ku idhi barafka dhacaya wadankeena waa wadanka ugu nimcada badan leh, waa wadanka ugu nimcada badan leh oo oo maaragtay dadka ay joogaan. waxaan focus gareynayaa wadada. So dadka maaragtay oo aan qabow lahayn oo kuleyl lahayn oo maaragtay 24 hours same weather weeye wadankeena oo samci cimiladeeda ay tahay same. laakiin dadkaan qabow baa soo dhacaya hadda, barafkay dhex fadhiyayaan. markaasaa waxay naftu ku leedahay yaa Allah, insha Allah waa idinla soo wadaagi doonaa markuu barafku bilaabo. laakiin wallaahi oo suma wallaahi been ma sheegaye dadkeena Soomaaliyeedoo wake up, hala kaco, waagu ha idiin bariyo please.
hala kaco maskaxda hala isku dayo waxaa jira dhalinyaro maskaxdooda ay aad fresh u tahay oo wax walba abuuraya maalmo dhaxlaas waxaan ka arkayay Facebook iyo meelaha social media caruuro diyaarada abuuray caruuro baabuur sameeyay caruuro muxuu haayay waxay la yihiin wax horumaraya hadda wiil yar cadaan hadduu wax abuuro hadduu matalan wax yar uu kaliya gareeyo waa la ordaa alla waxaan u abuuray kanuu sameeyay bal wuxuu sameeyay fiiriya bal siduu yiri fiiriya alla halkan buu ka dhacay anagana waxaan dhahaynaa isna maaragtay qofka lama dhiirigelinayo la isdhiirigeliyo hala kaco waad salaamayaa please subscribe my channel insha Allah hadduu videoga ku soo gaaro sii share garee walaalaha kale oo maaragtay Soomaalida ah ana u sii share garee si ay u arkaan wuxuu haayay horumarka wadamada kale ka socda insha Allah iyo insha Allah wixii kale oo maaragtay horumar oo aan meelaha ka soo in maaragtay aan kuwana qaadano noqon doonta haya see you one love wa salaama share-ka iyo muxuu haayay hayga iloobina iyo subscribe-ka share-ka iyo subscribe-ka hayga iloobina insha Allah dadkayga waa jeclahay walaalaha Soomaalida one love insha Allah see you guys